وما سنتين وبينت المستقبل أنيجي وحنا يركي وحجورسي أبيس عبد الرحمن مختار صالح يلي هذا السيد محمد عبد الرحمن مختار بالي هذا مرحوم كنت أنا وأحمد مختار صالح هذا هاتو أنا هرت نبى نلقيستي وفرب بدن أنا نلقيستي قبل مركي هو رئيس بدنين إلى ما أنت نبى أيام كجرناه مركي أو قبل أوتي أبين بأهد guriga buuqateen ayaan imid waxaan ku dhahay buuq marbiye gabadhiini haran baa naga tabsoo milidin islaamka haran lagu tilmaamo waan israacina gabadhii meesha joogto waan raadinayna waan soo siinaya waan israacnay waan tagnay waan soo helin 8 saac ma helin soo raadineen gacanta ayaan ka saaray hooyada dhashay markii gacanta saas kaga saaray ayay ugu tiri gabadheeda lama qabo waayahay in horta ilaahay baa kala badbaadiyay nin walba islaamnimadiisa goona wate bal kala daa يبدأ يعيش وياه يوتري سجال ساعة مركي يوصل لعبتي هبرت قبل وإن الإفراء تري وعلى خباي وذي أدير كذا يو هاي بدين إيه وحان داي أدير لقى خبو وإفر أنا اللي يوم خباي تري هذا أدير لقى خبان داي والغفرية والغفر هذا لقى الغفر ويدي ده لبها اللي قدي تري والغفرية ديار بقولنا لكن يسوق قارين قبل هذا waayahay igu tiri sidii ayaa meesha loogu dalaaqay laba qofood ayaa meesha joogtay oo markaati ah waa loo furay waa loo dalaaqay waan soo kala baxnay isbuuc kama soo wareegin anoo iska shaqaysanaya gaajiskayga ayay igu timid waxay tiri gabadheedu way maqan tahay wiilkayga waa maqan yahay waa ii soo dhalaysaa gabadha waxaan dhahay aniga ma wada naari abiisanaay dad oo qangaara is watayaan dhahay waxa aniga ugu khayriso waa khalad waaye tiri waan arki doonaa way iga tagtay subaxdii waxa ay imaadeen nin qori wata guriga soo garaacay aruurnimo salaad subax mar alla markuu igu soo garaacay waxaan dhahay maxaad doonaysaa waa iraacaysaa oo yiraahday xabad baan ku tirnaa intaan ku raacay wuxuu yiri laanta tawfiiq aan tagayna markuu laanta sheegay ayaan sii raacay waan laantii ayaan la geeyay laanta markuu lagu wareejiyay xabsiga waxaan loo sii gudbiyay saldhiga mar alla markaa tagnay taliye carabi meesha fadhiyay taliye ilaahay khayr ha siiyo runta ayuu ka hadlay diintu wax garanay waa umaleynaa islaam waaye wuxuu yiri ninkan wiila ka maqan adina gabar ka maqan bal horta ilaaha soo aruuriyo yiri kadib ayaa wada hadalka oo dhici kara wada hadal ayaa markaas dhici karo haddana waxay ku tiri taliyaha hortiisa ayay ku hanjabaaday dad baa diliyaa ay tiri dilkiina wuu dhacay taliyahana wuu maqlay أنا هذا إلا ذا يري هرتي ذا يندليا سيد أي إذا وحري أنا اللي يسودي وحرت الدولة أنا جم حرني وحرك دي بحال والي ما حيرين نسودي هو يدين أنا كم حرنا الدولة حرت أنا نيكا إذا وسقاتين أنا تلي ويري نيكان لبوينات كويساي بل ضمين بعد الوسودي ضمين تكذب أي حد وير وسقاتين بانقذ إيجو وتام واسكت دفعني وهالك أي الله دعوي inuu geelbaa meesha lagu dhaawacay dad badan idoo laga dhaawacay ay haddana saldhiga tagnay sidii ayuu wuxuu ku yiri ninkii damiinta ku damiinta qaldanayo sidii lagu xiray mar labaad la xiray dib baa soo marnay qaxar baa soo marnay markii ugu dambeysay waa tan oo hadda walaalkay ku dhintay anigu waxaan jeclahay in cadaalad jecel baahay cadaaladii ayaan u baahanahay in wax lagu qabto oo aniga diin islaam waxaan ahayn kuma jirin dawladda arooska ay sheegaysi waxaan iyo waa wax baabeen yeeli meeno dadkani waxay dushiis kaga jiraan wasaaraha waa inuu banaanka soo dhigaa waxaan oo ka hadlaa dadkiina la keenaa banaanka diin islaam wax nolol qasqasa qos ahaan maxaad macsantihiin anna qos ahaan waxaad macsannahay wax diinta islaamka qabo in loo qabto dawladdu waxay sheegtay in aroos qaran ay u dhigayso waa qalad aroos ka siiti waxba lagu daboolayaa mana yeelin anaga wiilka adiga dhalay gabadhii wali waa ku qanacsan yahay idinkan waxaad dalbanaysaan maxkamad in la geeyo dadka ka dambeeyay marka haddii ay dhacdo in maxkamad dadkan la waafajiyo wiilkiina ma la sii jeclaan lahaydeen inuu gabadha la joogo horta hal maadan ku sheegaa guurku waa gooni dadka wax dibka geystan diinta islaamka waxay qabto waa inay maraan sharciga diinta islaamka guurka kalima keeni karo macnaha in la isku dhaafo soo garta ma annaga waxaan qabnaa marka diin islaam waxaan qabnaa dad islaam baan nahay sharciga diinta islaamka wuxuu qabaa qofkii ilaahay ninka naagta oo qabo markuu dilo ma asaga qabi jiray maxaa la iskaga dhaafay maxaa loo dilaa waa sharciga diinta islaamka qabo qofka wax geysto in la dilo diinta islaamka qabto waa in annaga diinta islaamka waxay qabto noo la qabtaa tan kale annaga hadda xilka waxaan ku wareejinay dawlad
haddii labadii wiil kala saar iyo gabadha la kala saari lahay haddii wax kale iigay u taalaa soo wax garta ma haddii meesha cadaalad jirto haddii wiilku waxa ku darbidaysaan in cadaaladda annaga cadaaladda diinta islaamka aan ku qanacsannahay wax walba ilaahay dili karo walaalkay ilaahay dadkiisa ugu baxay laakiin sabab bay ku aad iiga waxaan leeyahay khamiista ayaa aroos qaran loo dhigaya wallaahi hataa noloma sheegin annaga dowladda hadday iida iska dhiganayso dadkii wax laga dilay iida ay ahayn cadaalad ay jirin ha iska samaysato annaga laakiin wax noola sameeyey ma leh annaga raalli kama nihi maxaa u soo jeedinaysaa dowladda iyo dowladda annaga waxaan u soo jeedinaynaa inay dhibkeena ay wax ka qabato